taliyaha qaybta 43aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maantay daah furay xaflad seminar loogu furayay saraakiil iyo askar ka tirsan taliska qaybta 43aad seminarkaas oo ku saabsanaa human rights ama xuquuqul insaanka. taliyaha ayaa darmay saraakiisha iyo askarta loo furay seminarka inay gutaan waajibaadkooda ku aadan seminarkaasi, waxaana hadaladiisi kamid ahaa sidan. waan ku faraxsanahay inaan idin furo tababarkan maanta ah. waxaan ogahay in qaarkiin hore ay tababarka soo qaateen, qaarna ay ku cusub yihiin soo saama. waxaad ogaataan tababarkani xuquuqul insaanka inuu yahay tababarada ugu faa'iidada badan ciidankeena u baahan yahay. haddaad maqashaan xuquuqul insaan waxa weeye qofku markuu dhasho ilaa uu dhimanayo xuquuq asaasi uu leeyahay. qofku waa inuu noolaan karaa, uu nabadgelyo heli karaa, waa inuu wax sheegi karaa oo codkiisa siduu rabo ugu hadli karaa. xuquuqda asaasiga ah way fara badan tahay, laakiin ma aha xaguu ka yimid iyo muxuu aaminsan yahay. reer ma aha, bini aadamkoo dhan xuquuq asaasiyay leeyihiin. taasaa la rabaa in la dhowro. qofku hadduusan fahamsanayn xuquuqul insaanka asaasiga ma uu dhowrayo qofka kale ee walaalkii walaashii ah xuquuqdooda, markee ma fahamsana soo saa maaha. okay, innaga ciidan ahaan ma laga maarmaan. haddii ciidankeenna wax loo soo kordhinayo, haddii hub layna siinayo, haddii dirays layna siinayo, haddii howlgal loo baxayo, had iyo jeer waxaa la isweydiiyaa ma qaateen tababarkii xuquuqul insaanka soo saa maaha. waxay tahay howlgalka marka la samaynayo dadkeenna aynu ka xoreynayno shayaadiinta, isla markaa waa inaynu daryeeli karnaa, badbaadin karnaa. gabdhaheennii iyo dadkii waaweynaa iyo hooyooyinkii ayooyinkii haddaynu sii dhibaatayno ma dhibaynu kordhin mise faa'iido soo dhib maynaan kordhin. qofku hadduu yaqaano xuquuqul insaanka asaasiga ah waxaa ka badbaadaya cid kasta oo ay kulmaan. waxaan ku rajo weynahay inaad ka faa'iidaysataan maanta tababarkan oo aad macallimiin noqotaan. ujeeddadu waxaa weeye marka la leeyahay 2 jeer baa lagu soo celiyey, waxaan u fahmayaa waxaa la rabaa idinku inaad macallimiin adhuuta noqotaan oo SNA iyadoo ay iskaafido oo aad tababartaan dadka kale askarta kale. intaasaan rabay inaan idin idhaahdo. waxaan idin rajaynayaa, waan ku kalsoonahay inaad duruusta si fiican u qaadan doontaan, soo gudbin doontaan, ka faa'iidaysan doontaan. aad baan idin salaamaya. شروع عمر باروش إذا عدى عدك عيدة ماذا قلب كسيدة مقالة ذاك اسمه.